wasiirkii hore wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinde Gaani ayaa booqatay qoysas danyar iyo sidoo kale qoys gurigoodu ka gubtay islamarkaana dabkaasi uu saameeyey agabkii iyo gurigii u yaalay. Wasiirka ayaa ugu hore waxay booqatay qoys danyara oo degan xaafadda Maxamed Mooge. Qoyskaasi oo ay wakiil ka ahayd hooyaaniisa oo ubadka qoyskaasi ku korinaysay jay ay ka ururiso buurta, waxaanay wasiirku qoyskaasi gaarsiisay lacag qadarkeedu dhan yahay $1,634. ugu horreynkaasi waxaa ka hadlay wasiirka iyo mas'uuliyiintii kala duwaneeda ku helinayay booqashadaasi ay ugu kurgalaysay xaaladda dadkaasi oo ay hore gacanta ugu haysay. Anisi waa inan Soomaaliland dara oo degan xaafadda Maxamed Mooge. waxay ka mid tahay sida caadiga ah dadka la iiga soo diro social media ee runtii tabaalaysan ama duruufuhu hareeyeen ee bulshadeena ka mid ka ah. waan u mahad celinayaa qof kasta oo ila wadaagay qof u baahan inay qaranku isbarbartaago. Anisi sida aad u aragtaan ee horteena ka muuqata waxay ururisaa jayga oo ay baaldiga iyo jaqafka yar ku ururisaa. waxaana ka iibsada iska rogooyinka. waqtigii la iiga soo diray social media anigoo u mahad celinaya guud ahaan wasaaradda, gaar ahaan agaasimaha waaxda arrimaha bulshada oo runtii marka la ii soo diraba isla markiiba ka jawaabi jiray baahiyaadka bulshada. waxa la iiga soo diray social media talaabadii koobaad ee tan ka horeysay wasaaradda oo agaasimaha waaxda hogaaminayo ayaa ka jawaabo raashimo ugu keenay. waxa weeyaan ka bacdina waxaan la wadaagay walaashay Rooda Cali Fidin. walaashay iyana waxay la wadaagtay muxsiniintii caawin jiray dadka jilicda san. ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daree. waxay u soo direen $1,634.87 lacag sarifkeedu noqday oo lacagta dirhamka 6,000 oo dirhama oo lacagta imaaraadka markii dollar loo bedelay intaa ka noqotay. waxaa soo bixiyay dad u dhashay dawladda imaaraadka carabta oo walaalaheena oo muslimiina. waa gabdho carbeed. waxay ka naxeen oo runtii ka tiiraanyoodeen markii ay arkeen sawirkii loo diray. waxaanan miisaanka xasanaadka inuu eebba ugu daro oo awlaadda u xifdiyo iimaanka u siyaadiyo gurigeeda. intaas kadib wasiirku waxa ay gaadhay qoys danyaro oo deganaa degmada Axmed Macalin Haruun magaalada Hargeysa oo dabgubay gurigoodii kuwaas oo loo dhisay guri. waxaana wasiirku ka warantay sida ay mar walba u garab taagnay dadka dhibaataysan, iyadoo sheegtay in inta ka hadhay muddo xileedkeeda oo aanay weli xilkii wareejin ay si wadi doonto howlihii qabyada ka ahaa. waxaanay tiri waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa ballanqaadkii markii ay ila wadaagtay xildhibaan Samsam gubashada qoyskan aan ballan qaaday inaanu ka soo jawaabayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyay oo ay noo rumowday. waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda oo isku duuban oo agaasimaha guud hormuud ka yahay. si gaar ah waxaan u xusayaa waaxda arrimaha bulshada oo runtii madaalayaal muwaadiniina oo muxsiniin iyaga laftigoodu waqtigooda iyo xooggoodaba ku ahaa. waxaa ilaahay mahadiya inaynu gebagabadeedii maanta halkan ku afjarno. insha allah waxaan leeyahay qarankiina gacanta idinku haya. waxa idinka qabyada ana isaga ayaa dhammaystiri doona. maan arki jirin runtii bulshada inta nugul waqtigii aanu xilkan madaxweynaha qaranku ii igman. laakiin waxaan ku ogaaday baahiyaha bulshadayda oo ilaahay iigu suuro geliyay inaan wax ka qabto waa mas-uuliyaddii la ii igmaday. taas ayaan ku shaqaynayay. waxaanan isagana marnaba ilaawi karin maayirka caasimadda Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid Solteeko oo wasaaradda markii madaxweynuhu uu ii magacaabay isaguna iigu deeqay $1,000 oo bil kastaba ah. kunkaas oo uu igula ballamay inaanan xarunta dhaqan celinta mooyaane wax kale lagu isticmaalin. Cabdiqaadir Cudi, Honkable TV, Hargeysa. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobaylo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung, dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka, internetka iyo adeegga casriga ah ee e-dahab.
mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333